Waxaan socdaalkayaga ku bilaabaynaa wargeysyada Ingiriiska ka soo baxa saaka oo aan ka soo xignay wargeyska The Times iyo warbixin uu qoray wariye Mitchell Evans oo ciwaankiisu ahaa xiisadaha Taiwan. Mareykanka waxa uu kala kulmi doonaa khasaare xoogan dagaalka Shiinaha. Qoraagan waxa uu soo koobay falanqeyn ay sameysay hay'ad cilmi nafsi ah oo ku taal Washington oo sheegtay in muranka baaxadda leh ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan mustaqbalka iyo madax-bannaanida Taiwan uu horseedi doono khasaare ba'an oo soo gaara maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha Mareykanka. Waxa uu intaasi ku daray in dagaalka badda oo aan horey loo arag oo ay saadaaliyeen saraakiishii hore ee Pentagon-ka iyo ciidamada badda ee Mareykanka ay soo dedejin karto in ciidamada badda ee Mareykanka iyo Japan oo iskaashanaya ay quusiyaan ilaa iyo 150 markab oo Shiinuhu leeyahay iyo maraakiib kale oo taageeraya Taiwan. Si kastaba ha ahaatee, kharashka difaaca jasiiradda sida ku cad falanqeynta waxay noqon doontaa mid aad u sarreysa. Evans waxa uu soo xigtay sarkaal hore oo ka tirsan Pentagon-ka iyo ciidamada badda Mareykanka iyo khubarada xarunta istiraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS kuwaas oo saadaaliyay suurtagalnimada burbur ba'an oo labada dhinaca haddii ay dhacdo duulaan Shiineesa. Sheekooyinka la soo jeediyey waxa uu tilmaamay in xaaladda iska hor imaad ee ay soo saartay xarunta si ay ugu ekeysiiso dagaal 2026 ay xaqiijinayso in aanay jirin cid si cad ugu guuleysatay colaadda. Gantaalada balaastiga ah ee ciidamada Shiinaha ayaa la filayaa in ay la degaan tiro badan oo ka mid ah maraakiibta Mareykanka iyo Japan ayna burburiyaan boqolaal diyaaradood oo dhulka yaala. Weerarada cirka iyo badda ee isbahaysiga uu hogaamiyo Washington waxay burburin doonaan Shiinaha iyo maraakiibta bannaanka ah. Ugu dambeyntii waxay badda ku quusi doonaan qiyaastii 150 markab, ayuu yiri Mark Kansan oo ah la taliyaha sare ee xarunta oo 30 sano ka soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka Mareykanka ka hor inta uusan noqon sarkaal sare oo ka tirsan Pentagon-ka iyo kadib aqalka cad. balse warbixinta 2016 ayaa lagu soo gabagabeeyay in militariga Shiinuhu uu la kulmi doono khasaare aad u weyn, balse 6 sano ee u dambeysay ciidamada Shiinuhu waxa ay sameeyeen horumar farsamo oo la taaban karo. Sida uu sheegay qoraaga, waxa uu dhisay keedka gantaalada balaastiga ah taas oo qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee uu kaga hortagayo kooxaha duulaanka qaada ee Mareykanka inay soo galaan gobolka xilliga dagaalka. Johnson ayaa u sheegay The Times in dhoolatusyadii u dambeeyay ee Shiinaha ay ka tarjumayeen awoodda la tixgeliyay kadib falanqeynta dagaalka. Dhammaan xaaladahan oo dhan, isbahaysiga US, Japan, Taiwan waxa ay ka hortagi karaan ciidamada Shiinaha inay qabsadaan jasiiradda oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, kharashka ayaa noqon doona mid aad u sarreeya, ayuu u sheegay wargeyska. Dagaal noocaas oo kale ah kadib waxa uu intaasi ku daray, waxay qaadan doontaa sanado badan in Mareykanku dib u dhiso ciidamadiisa sababo la xiriira heerarka wax soo saarka oo hooseeya iyo sidoo kale in dalalka kale sida Ruushka iyo Iran ay ka faa'iideysan karaan daciifnimada Mareykanka inta lagu jiro waqtigan. Trump iyo xisbiga Jamhuuriga ee dilemma. Waxaan u guurnay wargeyska The Guardian iyo qoraaga Lloyd Green. Toddobaadka Trump iyo Jamhuuriga xun ee aadka looga cabsado waxa ay ku dhow yihiin in ay ka sii daraan. Qoraaga waxa uu dib u eegay dhacdooyinkii dhacay toddobaadka xun ee khuseeya madaxweyne hore Donald Trump iyo xisbigiisa Jamhuuriga. FBI-da ayaa Isniintii u dhacday guriga madaxweynihii hore ee ku yaala magaalada Florida. Maalin kadib, maxkamadda racfaanka ee federaalka waxa ay taageertay xaqa guddiga aqalka u leeyahay inuu arko canshuur celintiisa, iyadoo dimuqraadiyiintuna ay yareeyeen farqiga weyn ee u dhexeeya iyaga iyo Jamhuuriga ee doorashooyinka gaarka ah ee Koongareeska ee Minnesota. halkaas oo natiijadu ay muujinayso in Jamhuurigu ay ku guuleysan doonaan gobolka. Waxaa loo arkaa inay gabi ahaanba taageersan tahay Trump marka loo eego xad aad u yar. Qoraagu waxa uu intaasi ku daray in si taariikhi ah ay madaxda federaalka ula dhaqmeen madaxweynihii hore ee dalka qaab bahdilaada. Waxa uu tilmaamay in sababta loo weeraray ay tahay tuhunka laga qabo in Trump uu qariyay dukumeentiyadii muhiimka ahaa ee dowladda markii uu dad kale ku celiyay keedka qaranka 7 bilood ka hor. Waxa uu intaasi ku daray inay jiraan warar sheegaya in maalmihii u dambeeyay ee Trump uu ahaa madaxweynaha in aqalka cad uu 15 sanduuq oo rikoor ah u raray guriga Trump ee Florida, kuwaas oo loogu talagalay in lagu xareeyo keedka qaranka. Waxaa xusid mudan, sida qoraaga uu sheegay, qabashada waxa ay daba socotaa booqasho bishii June ee Jay Pratt oo ah madaxa waaxda xakameynta sirdoonka iyo dhoofinta ee wasaaradda cadaaladda oo ku tagay guriga Trump, sida aan horeyba u xusnay. Qoraaga waxa uu xusay sida uu Trump hore ugu isticmaalay arrinta ku saabsan sii deynta sirta emailada Hillary Clinton
oo uu ka dhigan jiray hub weyn oo iyada lagula dagaalamayay xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, isaga oo ka dalbanaya taageerayaashiisa inay xabsi ku xidhaan. Si kasii ballaaran, amarka lagu weeraray hantida Trump ee Florida oo ay weheliso jabkii ka soo baxay go-aankii maxkamadda sare ee Mareykanka ee la xiriirta ilmo iska soo ridida ayaa sharaxay qoraaga kala qaybsanaanta sii kordhaysa ee u dhexeeya casaanka jamhuuriga iyo buluugga dimuqraadiga Mareykanka. Maalmahan, xisbiga jamhuuriga waxa uu sharciga federaalka iyo sirdoonka Mareykanka u muujinayaa dowlad qoto dheer, ayuu yidhi. Qoraaga waxa uu intaasi ku daray in xisbiga jamhuuriga aanu wax dhiba ku qabin dowladnimada in ay booskeeda ku leexiso. Waa haddii aanay arrintan aan loo jihaysaneyn, waxaan u codeyn doonaa jamhuuriga markii ugu horeysay. Ugu dambeyntii, wargeyska The Telegraph iyo sidoo kale qayb ra'yi ah oo ay qortay Leonel Shriver oo ah qoraa Mareykan ah ayaa waxa ay ciwaanka ka dhigtay waxaan u codeyn doonaa jamhuuriga markii ugu horeysay, laakiin maaha haddii ay doortaan Trump. Shriver ayaa waxa ay maqaalkeeda ku bilowday inay shaaca ka qaadayso jagooyinkeeda doorasho ee soo socda oo ay xubin ka tahay xisbiga dimuqraadiga. La yaab ma leh, waxaan aad u dhaleeceynayaa Donald Trump diidmadiisa natiijada doorashada 2020 iyo ku guuldareysiga inuu kaga baxo aqalka cad si aamusnaana sida madaxweyne kasta oo wanaagsan weerar dhab ah oo dimuqraadi ah. Qoraaga waxa ay xustay in kasta oo ay u codeysay Joe Biden, haddana ay ka xumaatay ku raaxaysigiisa cunsurnimo oo aan micno lahayn. Leonel waxa ay ku adkaysanaysaa in markii ugu horeysay nolosheeda ay u codeyn doonto jamhuuriga doorashada madaxtinimada haddii xisbiga jamhuuriga uu magacaabo qof muxaafid ah, macquul ah oo mas'uul ah sida gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis. Qoraagu waxa uu aaminsan yahay in Biden aanu xitaa laga jeclayn dimuqraadiyiinta dhexdooda ilaa xad ay albaabada dadka caddaanka ahi u furan yihiin xisbiga jamhuuriga doorashada madaxtinimo ee dhici doonta 2 sano kadib. Shriver waxa ay sheegtay in si loo xoojiyo kusoo laabashada xukunka iyo in la sugo codkayga, waxaa jira hal shay oo keliya oo ay tahay in xisbiga jamhuuriga aysan sameynin oo ah dib u magacaabista Donald Trump. Waxa ay weydiisay tani ma aad bay u adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, qoraaga waxa uu aaminsan yahay in tallaabada FBI-da ay ku weerareen guriga Trump ay u badan tahay inuu mar kale isku dayi doono in dib loo doorto. Shriver waxa uu intaa ku daray in taageerayaasha Trump ay mar horeba ku qanacsan yihiin in dowlad qoto dheer ay isku dayeyso inay burburiso hogaamiyahooda. Waxay hore u rumaysnaayeen in FBI-du u adeegto shaydaanka. Si kastaba ha ahaatee, way soo noqotay oo waxa ay sheegtay in dhinaca kale hadalka ah in qol kasta oo ku yaala guriga Donald Trump ay baarayeen in ka badan 30 sirdoon ma ahayn mid siyaasadeysan, waa fikrad lagu qoslo. Shriver waxa intaasi ku dartay in tallaabadani ay ahayd olole dacaayada oo loogu talagalay Trump maadaama dib u soo noolaanayaan taageerayaashiisa. Qoraaga waxay ku taageertay fikirkeeda iyada oo leh in muxaafidka jamhuuriga ay ku cambaareeyeen weerarka mid aan horey loo arag oo naxdin leh, laakiin waxa ay sheegtay in saacado badan oo baaritaan guri ah laga yaabo in uu u qalmo haddii ay ka dhalato xukun dambi ah oo ka dhana Trump oo soo geliyay dukumiintiyada dowladda, taasoo ka hortagaysa in uu mar kale u tartamo xafiiska federaalka. Waxayna Shriver ku soo gabagabaysay maqaalkeeda iyada oo leh waxa lagu farxo ayaa ah in badi dadka Mareykanka ahi aysan rabin in Biden ama Trump ay mar kale u tartamaan madaxtinimada. Codbixinta ayaa muujinaysa in ku dhowaad 7 ka mid ah 10kii qof ee la wareystay ay sheegeen in aysan dooneyn in Biden uu mar kale isa soo sharaxo, halka ku dhowaad 6 ka mid ah 10kii qofna aysan dooneynin in Trump uu sidaasi sameeyo. Daawada aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb. barnaamijkeena xogta dunida wanaag intaas. barnaamijka midka xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.